بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali maxamed meel walba ay joogaan. waxaanoo sii socda gabayadii diiniga ahaa ee taxana ahaa insha Allah. gabayga maanta waxa la yiraahdaa Kurbada, wuxuuna ka hadlayaa kurbada iyo kadeedkeeda, wuxuuna ku bilaabmay sidan: kurbadu waa dareen kadeed badanoo kugu beerta xanuune, ka kici weydaayo kal iyo laab kugu korodhaa kalsooni daraduye, kaaftoomi weydaa karti iyo karaanka awoodda kaa qaadaaye, ibliisku ka haysta kaah iyo kulayl uurkaaga gubaaye, cirka kor u eegtaa kuftaayo kabmi weydaayo kaalmo weydaaye, kelmad kaa soo bixi weyda kulli uunka wixii ku kor nool wada karaahdaaye, kali socod noqota aadamuha koonkan ku nool iska ilaalisa, dhufays ku jirta iyo kan iska dhowre, kadla iyo orod ku jirta kaalin weyn kugu soo baxdaaye, shaki ku galaa ka baqdaa kulli wixii dhaqaaqo kana sii dartaaye, kuwii kugu soo baxaba moodaa inay adiga dan kaa leeyihiin, kari weydaa inaad qoobsato dantaado warwar kugu idlaadaaye, kariimkood baridaa kaa kaafin kurbado kugu filnaane adna kor u qaad kalsoonida. waad mahadsantihiin dhammaantiin. waxaan leeyahay wixii kurba keenaya ha laga fogaado insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.